sida la sheego Fircoon wuxuu caqli ahaan ahaa qof iska caadi ah, Haamaanna wuxuu ahaa caqliga uu Fircoon ku socdo. Mar kasta oo Fircoon musiibo ku dhaco, Haamaan ayaa ka soo saari jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa timid islaan waayeel ah oo rabta in Fircoon u soo nooleeyo rideedii ka bakhtiday, sababtoo ah Fircoon wuxuu ku andacoonayay inuu yahay ilaah wax nooleeya oo wax dila. Haamaan islaantii wuxuu siiyey ri nool, wuxuuna ku yidhi Fircoon maanta howltaas ka weyn ayuu hayaa oo geel ayuu abuurayaa. Islaantiina way iska tagtay. Fircoon iyo Haamaan ayaa gadaal dambe ka kulmay, wuxuuna Haamaan ka sheekeeyey qisadii islaanta u timid in loo soo nooleeyo ridii ka bakhtiday iyo inuu siiyey ri nool, una sheegay in Fircoon maanta geel abuuris mashquul ku yahay. Fircoon oo aad u taahaya baa yidhi, Alla Haamaanow, haddaad ogaan lahayd siday u adag tahay in geel la abuuro. Haamaan inta dhoola caddeeyey ayuu yidhi hadalkiisa caanka noqday ee ahaa, Fircoonow, xataa aniga